dagaalyahanadii ka dagaalamayay buuraha galgalo ee deegaanada Puntland ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in ay la midoobeen oo beeco heshiis ah ay la galeen xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab oo ah garab ka mid ah al-qaacida. Sheekh Yaasiin Khalid Cismaan oo loo yaqaano Yaasiin Kilwa ahna amiirka dagaalyahanadaasi buuraha galgalo ka dagaalamayay ayaa cod maqal ah oo uu soo gaarsiiyay warbaahinta waxa uu ku cadeeyay in dagaalyahanadoodaas ay ku biireen xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab isla markaana ay qayb ka tahay isku biirista xarakaadka jihaadiga ah ee ka jira adduunka. anagoo ah mujaahidiinta buuraha gulis maantoo ah 3 Rabiul Thani 1433 waxaanu cadeynaynaa inaanu la midownay xarakada shabaab mujaahidiin anagoo ah Yaasiin Khalid Cismaan Yaasiin Kilwe ahna amiirka mujaahidiinta buuraha gulis waxaan la mubaayaconayaa أميرك حركة الشباب المجاهدين شيخ مختار أبو سرير وحنا ليه بايعتك على سمع وضاعة في المنشد والمكره في العسر واليسر وعلى أثرة علي وأنا ولاة أمر أهله إلى أن أرى كفرا بواحا عندي من الله فيه برهان ما تضعف. sidoo kale arinta ah isku beerista xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab iyo dagaalyahanadii ka dagaalamay buuraha galgalo ayaa waxa ka hadlay afyeenka xarakada al-shabaab al-mujaahidiin Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere oo shir jaraa'id maanta qabtay. afyeenku waxa uu sheegay in ay soo dhaweynayaan ku soo biiritaanka ay ku soo biireen dagaalyahanadii ka dagaalamay buuraha galgalo xarakada mujaahidiinta al-shabaab asigoona ku macneeyay arinta isku beerista ah arin maalmihii ugu dambeysay si dardargalaysay oo uu sheegay in mujaahidiinta ay isku biirayaan. marka maantay taariikhda hijriga ay tahay 3 bisha Rabiul Thani waxaan markaa ugu bishaareynaa muslimiinta midow ay midoobeen mujaahidiintii ka dagaalami jirtay buuraha galgalo gobolka bari kuwaas oo runtii عدو الله سبحانه وتعالى أشادرك لهم مقعابه كاكاو ذا البطلان تقال حيوك لكل جري يقول دقانا ذا أيجوغين انت كيف قليي شرع الله سبحانه وتعالى كانت راية التوحيد ما أنتنا قوان الصدي هنا يرمزي كم من نغضان إن ماذا مجاهدين تهي مدوبين أميركو ذا شيخ ياسين كيلو وهو بيعسي سيدا كم مغشين قاتم من القربانين المحلقة أمير كحرق سوى المجاهدين سوى عدي ما أنت يتقدم بي جنود يعيدا كثسا حرق المجاهدين سنايهين إنه روح لنا هاي مرحبا سولوان كعمفرق سولوان. dhinaca kale afyeenka xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab ayaa waxa uu ka hadlay shirkii ka dhacay magaalada London ee dalka Ingiriiska oo ay ka qayb galeen in ka badan 50 dowladood kaas oo looga arrinsanayay arrimaha Soomaaliya waxaana uu sheegay shirkaasi in aysan ka soo bixin wax ummadda Soomaaliyeed faa'iido leh isla markaana uu qayb ka yahay shirarka lagu majaxaabinayo maslaxadda ummadda Soomaaliyeed. على ذلك دولدود waxa ku dhow waxay isugu yimideen in ummadan maxay ahayd la dhibaateeyo waxa la yaabay laakiin gaalada laftigoodii si isku qoolaya mala salaawi oo gaalka ay gaalada cad rabto inay Afrika ku qabsato isaga ayaa laga showray marka wuxuu lahaa shirkan waxa shir qodobadiisa hore loo sii qordhow yahay saasa shaki qaba ayuu ka soo baxay handaan loo jeedinayo xarakada mujaahidiin iyo mujaahidiinta caalamka guud ahaan loo jeedinayo waxaan leenahay هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عنده أو بأيدينا. واحد لا سويسان لو في عندي جود ويا واحد لا سويسان إما شهادة إلى المسيح سبحانه وتعالى إما أن يذكر كما نص يقول هلا مويان وكان لا سويسان أما أنه حاجة لا سوينا إلهي عندي سبب المسلمين كذا أما قعدنا نوجد على وفي الله تعالى مركز هذا الذي هو بقايا oo cabsanaya insha Allah ta'ala cabsi ma idinka baqayn waxaan ka cabsanaa Allah subhanahu wa ta'ala. dagaalyahanada buuraha galgalo ku nool ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegay in ay ku biireen ayaa waxa ay asaasmeen muddo dhowr sano ka hor iyadoo dagaallo ay la galeen maamul goboleedka Puntland ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Faroole waana markii ugu horeysay oo ay shaaciyaan in ay la midoobeen xarakada mujaahidiinta ee al-shabaab.
cabdi kaamil yuusuf maxamuud Somalisa TV magaalada Muqdisho.